madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka ka ambabaxay airportka magaalada Muqdisho. madaxweynuhu wuxuu ku wajahan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, halkaasi oo shir saddex geesood kaga furmayo dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. shirkan ayaana wuxuu daba socdaa kii hore uga dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea, kaasi oo ahaa isku soo dhawaanshaha wadamada dariska gaar ahaan kuwada geeska Afrika. waxaana talaabooyinka dhanka horumarka loo qaadayay imaanayaan kadib markii guul laga gaaray colaadii raagtay ee muddo ka dhaxaysay dowladaha Eritrea iyo Ethiopia oo Soomaaliya wada hadallada gacan xoogan ay ka geysatay. shirkan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlayaa xiriirka siyaasadda, amniga iyo weliba iskaashiga saddexdaasi dal. agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur ayaa warbaahinta uga warbixiyay safarka madaxweynaha maanta uga ambabaxay magaalada Muqdisho iyo weliba kulamada magaalada Addis Ababa oo kula yeelanayo madaxda labadaas dal. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga hogaaminaya ayaa goor ka ambabaxaya halkan garoonka Aadan Cadde International Airport. wafdiga madaxweynaha waxay ku sii jeedaan dalka Ethiopia, halkaas oo uu uga qayb galayo shir saddex geesood ah oo ay yeelanayaan dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. shirkan ayaa daba socda heshiiskii dalalkan ay ku gaareen magaalada Asmara 5 bishii September 2018. siyaasadda xasiloon ee wadamada geeska Afrika ayaa iminka waxay noqonaysaa mid ay aad isugu soo dhawaanayaan dowladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Abdi Caysriil, Somali Cable, magaalada Muqdisho.